أنا والله حليا وحن ذكور قلينا وحكستا سيدي اللي قلت لك لا يكون عين الحمد لله رب العالمين إلهي وين بقول شير يكون شير بو ما هاد نقينا إلهي نو سورة قليي إنو دميي إنكو نبض قبنا إنكو محايد أمني يوكو دمايسترناي نبض قليو قوبيه دالكا كون يلح بقول يلا بيا فرتن بيا هايين ويسوق بقبوبين muhiimadda ugu weynina waxa weeyaan ha soo gabagaboobaan maxay ku soo dhamaadeen maxay ku soo xidhmeen nabadgelyo ku soo xidhmeen meelo yar way dhacday oo imanka tuulo yar ama goob ka mida burco nin bay xabada nin kaga qaraxday dhaawac yar baa jira wax yaroo sidaas laba askari wax yaroo noocaasi way jiraan oo aan badnayn laakiin ma hayno wax dhimasho ah wax dhaawacyo badan ah wax khilaaf ah min gees ilaa gees galbeed bari koonfur iyo waqooyiba waddanka oo dhan waxaynu uga dabaaldegaynaa dhammaystirkii doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan 13 Noofembar 2017 oo ah maalin taariikhi ah kuna weyn qarankan Somaliland hambalyaanu idin leenahay intii ka qayb qaadatay intii ka shaqaysay intii codaysay intii loo codeeyay intii gaadiidka u waday iyo dhammaanba qof kastoo ka qayb qaatay hambalyo waa maalin taariikhda Somaliland ku sudnaan doonta oo ah maalin aynu ku faani doono insha Allah bismillaahi kariim oo aynu dooran doono oo caawa way tahay madaxweynaha 5 sanadood ee soo socda qarankan xukumi doona isagana waxaanu leenahay ilaahay kugu gargaaro markay soo baxdo jawaabtu xagga rabbi waa laga ogiyay ilaahay wuu ogiyay inakuma ogin laakiin waynu ducaynaynaa saddexda murashax kii soo baxaba ducaynu raacinaynaa waajibaadkii way guteen muwaadiniintii Somaliland codbixiyayaashii waajibaadkoodii gute waxa laga sugayaa waajibaadkiisii mudanaha soo bixi doona sida loogu baxay sida loogu ololeeyay sida loogu shaqeeyay inuu qarankan ugu shaqeeyo oo uu noqdo hayin hogaamiye qarankan 5 sanadood soo socota annagu commission ahaan waxay noo tahay farxad weyn inaanu gudanay xil qaran oo weyn xilkaasuna noogu soo dhamaaday annagoo nabad qabna annagoo ku faraxsan inuu noo soo dhamaaday xilkaa weyn culays weynina waa naga degay caawa waxaan hambalyo idinka wadaa 5tii komishanaree kale oo anigii Siciid Cali Muuse aanu saacad ula hadlaynay minid ula hadlaynay xiriirka iyagu toos ahaa iyagana waxaanu idinka wadnaa salaan way naga maqan yihiin insha Allah ilaahay inoo keeno iyagoo nabad qaba iyagiyo shaqaalaha ka soo shaqeeyayba cod bixinta taasaanu cod bixintii doorashada madaxweynaha waxaanu leenahay inakoo nabada idinkoo nabada inaynu isu soo guriyo noqono hadda aynu joognaba durbaba way soo gaadheen goobihii qaar ka midii degmooyinkii laga xukumayay waxaa bilaabmi doonta in la tiriyo tiradaasu markay dhammaato ee ay ku dhammaato goob kasta waxaa loo diyaar garoobi doonaa in loo soo raro degmaday ka koobnayd ama degmada goobtaas hoos timaado oo noqon doonta 22 degmo doorasho oo iman doonaan dhammaan ku soo hoyan doonaan goobaha laga cod bixiyay markay yimaadaan degmada waxa way soo dhaxayaan markaan in yar idinka taabano hadda markay dhammaato way xidhanayaan albaabka markay albaabka xidhaan waxa gudaha ku jiraya 7 xubnood 7 xubnood oo noqon doona 4 xubnood oo komishanka doorashooyinka qaranka u shaqeeya oo kala ah gudoomiye ku xigeen xogeeye iyo hubiye
iyo 3 xubnood oo ka socda 3 xisbi qaran 7 xubnood ayaa iyagoo wada jira albaabka xidhan doona leerka siraadan doona bilaabin doona inay tiriyaan maxay sida loo kala helay codadka markay dhameeyaan way kala saxeexanayaan 7 xubnoodba saxiix bay leeyihiin haddaanu saxiixaas jirin oo annaka 4 xubnood way ku qasbayeen inay saxiixaan waayo iyaga shaqada wada 3 xubnood ee wakiilada haddii uu saxiixi waayo form ka la yiraahdo D1 oo ah foomka lagu ururin doono xogta codbixiyaasha waxay noqon doontaa inuu cabasho raaciyo foom kala barbar socda oo sharcigu u ogol yahay xeerku u ogol yahay hadduu form D1 ka diido inuu saxiixo xubin ka mid ah 3 xisbi qaran wakiiladoodu waxaa sharcigu u ogol yahay xeerku u ogol yahay inuu cabasho qoro foomkaasina uu yaalaa hadduu hor yaalaa kaasuu soo qoranaya cabashadiisu waxay soo raaci doontaa sanduuqa gudihiisa ayay soo raaci doontaa waxaana la siin doonaa mid kasta copy waxa ka soo baxay jadwalka jawaabta ka soo baxday ama resultka ka soo baxay xubin kasta oo maxay ka socota xisbiyadu waxay qaadanaysaa copygeeda copyga originalkaana waxa soo qaadaya gudoomiyaha goobta isku baabuur bay soo raacayaan ma kala harayaan waayo waxa la ilaalinayaa sanaaduuqda isla caawa waa la soo guurayn doonaa sanaaduuqda waxa soo raacaya 7 xubnood oo aanu diin sheegnay iyo ciidankii ilaalinayay ilaalada ahaa ayaa soo galbin doona ma kala harayaan waayo sanduuqu waa ka la xisaabinayo waa ka maxayday aynu qiimaha weyn maanta inoo leh in la ilaaliyo la xifdiyo la barbar galo oo aan loo kala harin si ay arrinteenu u noqoto waadax ama transparent oo aanu qofno qof u shakiin waxay ku soo hoyan doonaan ka ugu dambeeya berri subax insha Allah bismillaahi kariim degmadiisii buu ku soo hoyan doonaa halkaasoo ay ku sugayaan maxay wakiilo xisbi oo cusub oo fresh ah oo dardartooda qabaa ku sugaya waa qoriisu dhiibkii wakiiladii soo shaqeeyay ee koobaha ka soo shaqeeyay waraaqdii koobigii uu haystay wuxuu dhiibay ka cusub ayuu ku wareejinayaa iga qabo halka ka sii wad halkaasuu ka wadayaa degmada haddana lagu tirinayaa iyadoo la wada joogo loo batay oo gudoomiyaha komishanka degmaduna uu joogo 2 xubnood oo ka socda kale oo ka socda xisbiyaduna ay joogaan halkaas haddana laga tirinayaa wixii cabasho lagu eegayaa marka sanaaduuqda aanay cabasho jirin la dhammaystiro ayaa waxa loo jeestanayaa hadday jiraan sanaaduuq cabasho la socotay oo karantiinka la geliyay ayaa ugu dambeynaya waa la dhexda la dhigayaa waa la wada arkayaa dub baa loo tirinayaa haddii xisaabtu sira dhaaftay iyo hadduu qalad ku jiraba degmadana saasay uga soo baxaysaa insha Allah berri habeen dambe ayay degmooyinka aanu filaynaa inay ka soo dhammaato oo ay ku soo biyo shubato gobolada halkaasay ka soo soconaysaa waxay imanaysaa xarunta qaranka 17 insha Allah filaynaa inay yimaadaan hadday ugu soo horeeyaan ama 16 dhamaadkeeda ama 18 haddaanay cabashooyin badan jirin ama roobab ina xanibin waxaan idinku bishaareynaa in waqtigan aynu taaganahay ay noo soo dhamaatay codbixintii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee 5 sanadood soo socda lagu dooranayay qarankoo dhan ina maanta heeganaha hambaliyana aanu qarankoo dhan u dirayno iyo idinka soo jeeday maanta iyo xalayba ee noo hortaagnaa ee aan daalin ee hortayada aanu arkayno tacabka idinka muuqda idinkoo doonaya warka farxadda leh iyo hididiilada leh inaad adduunka gaarsiisaan idinkana naga wakiila gaarsiiya adduunka gaarsiiya waxaynu qabsanay iyo waxaynu yeelanay iyo halkanu marayno wabillahi tawfiiq bismillahir rahmaanir rahiim waxaan umaleeyaa wixii warhaa waxa inoo dhameeyay gudoomiyaha muhiimadda ugu weyn halkaas imika jirtaa waxa weeye markii hadda wararkii ugu dambeeyay aanu xogta soo qaadanay goobta isgaadhsiinta ee halka idinka dambaysa wararkii ugu dambeeyay waxay noo sheegayaan goobaha qaarkood inayba ka bilaabatay tirintii oo mar hore talixdii markii la gaadhay oo daqiiqada ka joogno la xidhay waa goobihii aan safku markaasi taagnayn
taasi farxad bay noo tahay waxa farxadda kale ay tahay aaw anaga waliba laba farxadood bay tahay idin sheegaya mid waa guusha iyo nabadgelyada iyo codbixinta doorashadii oo si nabad ah inoo ku dhamaatay waa intii aynu sugaynay dad badan baa wadnaha farta ku hayay laakiin alxamdulillahi rabbil caalamiin komishanka doorashooyinka qaranku waa dadaalay xukuumaddu waa nala dadaashay intii taagteeda ahayd xag dhaqaale iyo xag ammaanba waayo ammaanka aynu ku seexannay ee doorashadaas inoo ku dhacday ayaa xukuumadda ayaa ka mas-uula waxaan kale oo iyana nala gargaaray hawshaasi oo nala qabtay haddaan nahay komishanka waa xisbiyada qaranka oo la'aantood iyagu ah kuwa tartamaya haddana nala shaqaynayay waxay nagala shaqaynayeen si allaale sidii ugu wanaagsan ee suurtagal ah oo ee hawsha aanu qabanaynay ay u noqoto mid lagu guulaysto oo guul aynu ku gaadhno waana tan aynu caawa halkan alxamdulillahi rabbil caalamiin annagoo ku faraxsan aanu idinku sheegayno in si wanaagsan oo nabad ah meel walba aynu uga dabaaldegayno hadda dhowaanna aynu dabaaldeg kale samayn doono kadib marka aynu raacino natiijada madaxweynaha qofka ku guulaystay taasi waa midda kale aniga waan idin sheego farxad bay tahay baan idin soo maaha farxad labaad farxadda labaad ay tahay waxa weeye maanta ay 13 tahay bisha 11aad maalinta dhashay ma waxa weeye qoyska reer Cali Muuse caawa wiil baa ku soo kordhay maanta insha Allah marka taa qudheeda farxad weyn baa caawa ay tahay daalkii hayba way ka baay runta marka idin sheego marka taa qudheeda waa farxad labaad alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaanu rajaynaynaa in inta inoo dhiman oo ah inta ay goobuhu ka imanayaan goobihii lagu cudbixiyey ay ka imanayaan oo imanayaan degmooyinka in iyaguna si nabada goobahaasi ay ku soo gaaraan degmooyinkii marka goobta lagu soo tiriyo goobtii degmadii baa la keenayaa degmadii baa haddana lagu tirinayaa oo lagu eegayaa wixii natiijadii ka soo baxday goobaha marka alxamdulillahi rabbil caalamiin warka marka ugu horeysa ee aan wax wara helo ee cusub ee soo baxa meesha ugu horeysa ee aad ka ogaanaysaan waa goobta tan aynu caawa taagannahay halkan kamaradihiinna iyo reediyoyadiinna iyo qalabkiinu diyaar haydin ahaado internetka waataynu qalabkii kale waataynu xidhnay internetka way noo furan tahay marka halkan baynu isku soo noqon doonaa insha Allah bidnaahi alkariim wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh iyo fifa si nafsi koowaad ali iyo talabada kale koowaad fifa magacayga oo fifa ka soo divisionka Soomaaliyeed haddii dadka goobta ku sugan xisbiyada matalaya cabashadooda ku soo radiyaan sanduuq dad kale jiro mas'uuliyiinta asxaabta oo qaarkood la xidhiidhay cabashadaas ma soo gaadhay maxaa ka qabatay hadday jirto bismillaahi raxmaani raxiim shaqo kastoo la galaa waxay leedahay kolley iska horimaad ugu imanayaa waayo haddaan shaqada la isku qabsan ama la iskaga hor iman ama la isku qaylin ama aan dhibaato maxayday dhici lahayd laga hortegin way maxayday imanaysaa way dhaceen dhacdooyin dhacay laakiin markayna soo gaadhaanba waxaanu amar siinaynay taliyaha booliiska si uu sii daayo waayo maanta umaynu baahnayn umana baahnin buuq badan imakadan waxaan ka imi idinkoo halkaa joogaan idinka tegey degdeg war igu soo dhacay ahaa meel baa la boobayaa ama qaldamay ama qaylo ka soo yeedhay oo askartii isku hortaagay iyo shicibkii waan tegey waan soo kala dejiyey markaa way imanaysaa meesha hadduu tacab yaallo hadday shaqa taallo waxay imanaya isku dhac way imanayaan iska horimaad way imanayaan laakiin waxa weeyaan xal ma lagu raadiyey xisbiyadu hal xisbi uun maaha saddexda xisbiba way cabanayeen waxyaabo kala duwan bay ku cabanayeen waxyaabo kala duwan bay noo keenayeen dacwooyin kala duwan bay noo keenayeen waanu xalilaynay waxaan se ku kalsoonnahay hadda halkaasoon fadhino inaanu dhammaan ama badankoodii xalilnay wixii ay ku kala cabanayeen xisbiyadu
mudane waxay jirtaa wax kastoo hawl kastoo khaladaad baa dhaca khaladaadka waxbaa laga oo uu dadku cashar u ma jiraan wax aad ka barateen oo imaka komishan ahaan markaad tidhaahdaan wax walba si wacan bay noogu dhaceen guud ahaan wey laakiin dhinaca farsamada waxyaaba idinka khaldamay oo aad ka barateen ma jiraan su-aasheeda labaad waxa weeye imika waxaad sheegtay marka tirinta la gaadho in saddexda muraaqib ee xisbiyada iyo afar commissionkeeda meel lagu xareynayo ma dhici kartaa markaa ama ma la ogol yahay in aad soolaydgaraysaan dadkaasoo telefonada laga qaado si muraaqibiintaasoo kale aanay breshar xisbiyada u saarin oo markaa loo fokus gareeya hawsha lafteeda tan hore aan kaaga jawaabo calow waxaa weeye waa run bini aadmi baynu nahay qof walba waa qaldami karaa qof aan qaldamin ma jiro laakiin waxbaa laga bartaa lessons baa laga bartaa duruus baa laga bartaa duruusta laga barto dee waxbaa lagu saxaa diiwaangelinta markaanu samaynaynay waxyaabo aanu maanta haddaanu qaban lahayn si kaloo qaban lahayn waa jiraan kaadh qaybinta markaanu samaynaynay oo aanu kaadhka qaybinaynay waxyaabo aanu si kale ka duwan maanta aanu qaban lahayn waa jiraan laakiin inta labadaba markaanu samaynaynay waxaanu samaynay wax allaale wixii qaladaad ahaa ee dhacay ayaanu qoray oo kaydsannay waxaan ugu talagalnay markii xitaa maalan waxaa ka qaadaa inaanu gobol hawshaa ka qabannay gobollo kalena aanu tegaynay marka gobolkii hore haddii wax naga xumaadeen dee gobolka dambe wixii gobolkaa naga soo gaadhay kuma dhacaynin waayo waa already waxaanu soo barannay wixii gobolkaa naga soo qabsaday oo meelaha yareer qaladaad ka dhacay aanu ku saxaynay doorashadii baa timi doorashadii dee maantayba dhacday wax qalada oo aanu leenahay maanta haddaad sidaa yeeli lahaydeen ama waxaasaa idinka qaldan dee ma jirto alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waa laga yaabaa marka kale aanu doorasho qabanno in abaabulka iyo hawlo yaryar oo kale iska magaranaysaa gaadiidka iyo waxyaaba caynkaasoo soo raaca inaanu magaranaysaay habkii aan u samayn lahayn laga yaabo inaan wax ka bedelo laakiin wax weyn oo aan maanta isleenahay war waa qaldanteen oo waxaas wanaagsanayd inaad samaysaan marka dambeto sidaa u sameeya haba yaraatee ma jirto ilaa toddoba qof aan la kulmay anigu oo kaadhkoodii markay la yimaadeen liido already waa lagu codiyey taasoo kale okay way kolay siciid wuu dhameeyey waxa weeyaan markaanu saddex operation baanu galnay kalaa kii saddexaada mar kastoonu galno waxaanu leenahay core staff ama shaqaale aada u carbisan oo departmentyo kala duwan haysta department kastaa wuxuu soo diyaariyaa report maxaa qaldamay siduu u qaldamay maxaa lagu saxayaa reportkaa weliba aanu soo diyaarin waanu isu wada keennaa buug baanu ka dhignaa weyn waxaanu ugu talagalnaa inaanu istabka kaleen qaadayno ama markaanu soconayno aanu tusaale u qaadano isla markaa haddana archive inaanu ka dhigno oonu uga tagno commissionka naga dambayn doonaa inay arkaan waxyaabihii aanu qaladnay technically waxyaabihii noo saxmay iyo sidaan ku saxnay iyo halkii ka timi qaladku waxaa kaloo jirta bini aadam baynu nahay human error wax la idhahdaa jira aniga siciid maanta waxaanu joognay dugsiga sare ee sheekh cali yuusuf sheekh cali ibraahim ama biyo dhacay la odhan jiray annagoo goobjoon u dhacday erarka aad sheegaysaa dhallinyaradan aanu tababarnay waxaanu tababarnay muddo 4 maalmooda waa dhallinyaro gobol kale ka timi environmentku ku cusub yahay shaqadu degdeg ku tahay dadkii ku buuqayaan dadkan laftigooda suulka loo saarayaa waa gariirayaanoo qaar baa hadduu doono meel kale ku dhufanaya waa systemkaa waanu ognahay waa la saxayaa waxaana lagu saxayaa goobta markuu ku dhaco suulku qof kale meeshiisii cross qalicas baa la saarayaa halkii baa lagu celinaya loo leeyahay isagoo saxa saar tigna waa la siinayaa way ku tababaran xisbiyada muraaqibiintuna su-aashaadii labaad aliyow annagu waxaan nahay transparent in la caburiyana maaha ma caburinayno muraaqibka ama wakiilka xisbiye jooga goobta telefoonkiisu waa u furan yihi wuu haysanayaa laakiin waxaan kuu sheegaynaa inaanu mekanism samaynay hab baanu samaynay aan ama ha hadlo ama yaanu hadlin annagoo qofkii dhibaato u geysan aanu qaladiminayn oo habkaa dub loo soo raacayo habkaa dub loo soo raacayo ayaanu samaynay marka mar haddii hab kuu samaysan yahay
habkiina aad ku kalsoon tahay qofkan waxba kaa dhibi maayo ma dhacaysana sidii berigii hore la odhan jiray laba xisbi baa isku raacay waa la kasalgareeyey sanduuqaasoo dadkii codkoodii baa lagu ciyaaray ma dhacayso waa dacwad soo qoranaysaa dacwadaadaasu hadday tahay ama cabashadaasu hadday tahay mid macquul ah oo marka laysu wada yimaado macquul noqda waa okay ama saddexduba hadday doonaan cabashada soo qortaan laakiin hadday macquul noqon waayaan ma luminayno xaqii muwaadinka codeeyey ma lumayo laakiin waxaa la saxayaa habkaa la saxayaa habkaana waxaan ugu talagalnay hab isagu isa saxayo dub iyo hore u socda oo raadka la raacayo kaasaan ugu talagalnay waad mahadsantihi waxaa soo hada qaaday xagga hore in shilal yaroo kooban ay dhaceen waxaa laga yaaba dadka inay siyaabo badan marka shilalka dhacay tusaalehaan laba askar oo kala soo hada qaadeen goob bulshada ka dhacday ama askari iyo dad xunaan hadaa arrintan noo kala yara sisiisay ku dhaceen shilalku waxaa ka mid ahaa baabuur dhacay muraayadii hore jabtay gobolka Sanaag inaan maxayday gudoomiye goobadna ahaa dhaawac yar soo gaadhay waxaana loo sheegayaa halkaa uu shilku labada askari ka dhacay inay gobolka Togdheer ahayd baabuur dhiirigal oo maxayday xabadi kaga qaraxday nin askari iyo nin kale oo dhaawac fudud oo xagga madaxa waxa dhacay iyaguna in baabuurta qaarkood ay dhiiri naga galeen nacam shilal noocaasa oo aan la odhan karin hadda waa shilal waaweyn oo la buunbuuniyo oo la yidhaahdo waxaasaa dhacay may dhicin doorashadan ma haddana waxaynu dee kolley u nisbaynaynaa un ilaahay baa noo suuro geliyey waxayday isagaa aynunu ugu mahadnaqaynaa ma hadda badankeedana ilaahay baa leh inaku masaakiin baynu nahay waynu shaqaynay shaqadiina waynu qabanay job well done weeyaan anigu waxaan maan maqal wax mudaharaadoo lagaga soo horjeedo waxaan maqalnay meel yaroo maxayday qola soo gashay oo ay markiiba ka noqotay laakiin wax mudaharaada maan maqal hadaaftimo